بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والله ليال waxaynu dhexda kaga jirnaa silsiladii ama taxanihii dardaaranadii nabiga calayhi salaatu wassalaam gaar ahaan marka dhibaatooyinku dhacaan ummadiisa u dardaarmay waa kelmadeennii shanaad ee barnaamijkana silsilada ka mid ah waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa biidni illaahi tacaala duco nabigeenu ina faray calayhi salaatu wassalaam ama ducooyinu ina faray riwaayaad kala duwanna ku yimid markaynu guriga ka baxayno inaynu ku ducaysano si ilaahay inooga xifdiyo sharka iyo dhibaatooyinka xanuunada adigoo nabad gashan oo badbaaday oo shaytaan ka badbaaday oo amni darre ka badbaaday oo xanuun ka badbaaday oo dhibaato oo dhan ka badbaaday ilaahay u gurigaaga adoo nabada kuugu soo celiyo muxuu yidhi nabigeenu calayhi salaatu wassalaam xadiidu Anas رضي الله عنه وحولي نبينا عليه الصلاة والسلام وحولي مدكين وفي رسالة مدكين مركا وقريقيسا كبحيو أما قورتا وقريقيسا كبحيو هدي ويراهد بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ووحيركو بسم الله وصدح ويرادو كليا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله هدو يراهضو مدكين وحو نبي عليه الصلاة والسلام وحال يراهضا يولو جوابا مركو انت لي مادو أدون يهو ناكسني والغو هنوني كو إلهي با جدك توسن كو هنوني جدك خيرك كو هنوني كوانا قردن بالغو مري وكفيت إلهي با كو فلناضي وفيرسو ilaahay baa kugu filnaaday oo baahidaada ku filnaaday oo wanaagaaga adduunyo iyo aakhiraba kugu filnaaday qodobka saddexaad waa wuqiita waana lagu ilaaliyay waa lagu xirsi xidhay waa lagu toosiyay dabeedna qodobka afraad waa fatanaha lahu shayaatiin ayuu nabigu calayhi salaatu wassalaam shayaatiin oo dhamina jidka uga leexdaan way ka dheeraadaan way ka fogaadaan بديس ودن بشيطان ودن ما كبحا ما انت سيكون اكتاي وحو نبي عليه الصلاة والسلام شيطان كلا يرى هذا أو يرى هذا فكيف لك برجل شيطان يهو سيدباد دباتين يسام بدي سادو جل يسابا قف إلهي هنوني وبلنقاد إلهي موقته قف إلهي هنوني وإلهي كف اللاضي وإلهي وإلهي وبدبادي sideeba wax kaaga sugnaaday oo nasiiba ama arinahood ku leedahayba aslanba ma jira shaytaanka kalena oranaya kelmadan waa kelmad runtii qofka xaalkiisu uu ku fiicnaanaya marka koobaad waa kelmad adoonku markuu akhristo laabtiisu ay waasac noqonayso waa kelmad ka dulqaadayso oo ka faydaysa ilaahay idankiisa culayska iyo cidhiidhiga ka qaadaysa waa kelmad qofku hadii uu la yimaado ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaaladihiisa oo dhan uu ku wanaajiyo hanuun haday tahay iyadu ku helayaan haday tahay kifaaye iyo baahitir haday u baahan yahay iyadu ka helayaan ilaala iyo badbaado iyo xirsi xidh iyadu ka helayaan shaytaanna shaqaba isku malihidin ba sida awadeed ayaa waxa uu nabigeenu ku sheegay calayhi salaatu wassalaam la hawla wala quwwata illa billah inay tahay talaal ama waxyaabaha lagu beero ama lagu talaasho jannada mid kamid ah inay tahay buu ku sheegay waxa kale uu nabigeenu ku sheegay calayhi salaatu wassalaam kaydadka jannada mid kamid ah weeyaan ba hada u fiirso waa kayd kamid ah kaydadka jannada hadana kamid ah Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ayaa wuxuu leeyahay رسولك إلهي باوحو يري سوى إيدر دارميا يا عبد الله بن قيس سوى وجه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مكو تصايا ومكو شيغا كنزي أما كيد كميدا كيدتك جندا ميد كميدا مكو شيغا دبدنا وحو لها يا رسولك إلهي ويشي وحو نبي يقول عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله وحنبا ترى هذا أيوه كليا لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة ده ميلا قارة
oo si gaara laynoo sii faray baa jira inaynu kelmadda akhrisano waa marka koobaade marka la aadaanayo muadinku leeyahay hayya cala asalaati hayya cala alfalaax inaad tidhahdo laa xawla walaa quwata ilaa billah waa meesha labaad markaad gurigaaga ka baxaysana inaad tidhaahdo bismi illaahi tawakaltu cala allahi laa xawla walaa quwata ilaa billah waa marka saddexaade marka aad guriga soo gelaysana iyadana sidiisi la eg baa lagaa rabaa inaad tidhaahdo waa marka afraade markaad wax ku cajab geliya oo kaa farxiya markaad aragto xoolahaagaa kaa farxiyey caruurtaadaa kaa farxisay xaajiyaddaa kaa farxisay odaygaa kaa farxiyey waxaad ku faraxda baad aragtay maxaad odhanaysaa laa xawla walaa quwata ilaa billah maa shaa allah tabaaraka allah laa xawla walaa quwata ilaa billah marka walaalayaal kalimaadkaasi kalimaad culus maaha kelmado waqti inaga qaadanaya maaha kelmado aynu ku dhibtoonayna maaha markaad gurigaaga ka baxayso xirsi xidh ka dhigo ha iska ilaawin maxaad odhanaysaa bismi illaah magaca ilaahay baan ku baxaya magaca ilaahay baan ku soo laabanaya magaca ilaahay baan ku samaynaya ilaahay baan tala saaranaya laa xawla walaa quwata ilaa billah جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم خير الدنيا يا آخرة إلهي هينا وافجيو إلهي كرونها يا حنونها يا وباقة يا امتحانات كأدوية إلهي هينا قبت باديو آخرنا هينا قلنا بدقلني وبدبالني وخاتمة دينا إلهي وناتشي مير ونكسن الله هينا قبيغو وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.